maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood galmudug doorashadeedii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo soona dhaweeyo una duceeyo lana dardaarmo waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo barnaamijkii Farooli iyo Goodax ay ka wada hadleen oo ku saabsanaa shahaadadii waxbarashada dhalinyarada muxuu ahaa Puntland ama ardayda Puntland shahaadadoodii inaan ka hadlana waan rabaa iyadana haddii alla idmo awalan Allah mahad iska leh waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo una hambaliyeeyo una duceeyo in Ilaahay barakeeyo doorashadii galmudug qoorqoor iyo Cali Ciid madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa soo bixitaankiina madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxaan rajaynayaa kuwii lagu nasto inaad noqotaan galmudug Soomaaliya kuwa ay ku nasato inaad noqotaan wada fiican inaad furtaan inaad u gargaartaan dawladdiina federaalka shacbigiina aad u gargaartaan baan idinka rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa meel fiican inaad ka soo baxdeen taakadii Soomaaliya hortiilay inaad ka qaadeen baan rajaynaynaa maanta haddaad idinku galmudug ka soo baxdeen khayrna waa idin rajaynayaa insha Allah lambar 2 waxa horta aad mucjiso u ah hogaamiyayaalkii Soomaalida dad xun bay noqdeen waa dad mucjiso ah waa dad munaafiqiin ah hadalkooda iyo ficilkoodu isma leh waa wax aad la yaabayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad soo xusuusanaysaa aayadiisa Quraanka ahayd وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوب مسندة ها حداد بدان تودا aragto way ku cajab gelinayaan waxaad leedahay war meeshan war muxuu ninkaan ahaa waragan maqaawirti maxay ahaayeen war niman mucjisa meeshan ka soo socda haday hadlaana wa in yaqulu tasma' liqawlihim hadalkooda waad maqli hadal qalbiga gali kara oo dhagaha bini aadamka gali karay ku dhihi laakiin maxaa ka dambeeya kaanahum khushubu musannada maxay oranayaan hadda bal dhageyso bal Axmed Madoobe hadlaaya arag bal Xaafo hadlaaya arag bal Shaakiro hadlaaya arag maxay ka oranayaan markay hadlayaan waxay oranayaan dalku wuxuu u baahan yahay badbaado ummaddu waxay u baahan tahay midnimo ummaddu waxay u baahan tahay amni ummaddu waxay u baahan tahay horumar yaa ka hadli kara intaas muxuuna sameeynaya waad aragtay wuxuu sameeynaya Axmed Madoobe waad aragtay wuxuu sameeynaya Xaaf wuxuu leeyahay walaayadeedii waa soo ceshay jahligu waa balaayo wuxuu maqlay hebel islaantii uu furayo wuu soo ceshay haddana rajacti buu yiri wuu soo ceshay buu maqlay wuxuu u haystaa dalkan iyo dadkan oo dhanba islaantii halka dalqa uu ku furay buu u haystaa jahliga inta la eeg bal fiiri hunguruxumada inta la eeg bal fiiri doqonnimada inta la eeg bal fiiri iimaan laanta inta la eeg bal fiiri ninkii weynaa oo sharafta lahaa oo ganacsadaha ahaa oo madaxweynaha loo doortay oo qoraalka sameeyay oo wax qaatay oo meeshii wareejiyay oo arrimaha gudaha ku wareejiyay oo maanta haddana kule ma xisoonaya waxa iga sii daran mid uu magacaabay gudoomiyaha guddigii doorashooyinka uu magacaabay oo horeyna xildhibaan u ahaa oo meesha dhuusamareeb wax ka doontay oo ka tagay waxyaab la weeye horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliya horey u soconaysaa wayna guuleysatay Ilaahayna dawlad fiican wuxuu la doonay Milla Sanaawi markuu dilay khaarijka hadda maanta Milla Sanaawi jooga halkani ma yaaleen dib baa Soomaaliya haysan lahaa midaan ka weyn waxa kale oo Ilaahay uu xal la doonay arrimaha gudaha Soomaaliya Faroole markuu saldanadii dhaafiyay ayaa Ilaahay xal la doonay Soomaaliya way ka dhibnaan leen maanta haduu danigan hadda laga qaylinayo Faroole haduu joogi lahaa dib baa dhici lahaa kan ka sii daran waxaan leenahay hogaamiyaalka Soomaaliya ayaa darra ku dhacday meel sare iyo meel hoose iyo meel dhaxba hogaankeedii baa ibara waxaan soo dhaweynayaa hadalkii wasiir Goodax wax badan baan ku daba marsanahay laakiin qofku wax wanaagsan markuu ka hadlo
iyo wax dadnimada iyo midnimada iyo horumarka iyo caqliga iyo diintaba u gargaarahaya waa la garab siiyaa dadku waxay garan laayihiin qarannimadii bay garan laayihiin madaxdii Puntland waxay ka wareertay qarannimadii midnimadii wadajirkii Soomaaliya annaga dhisnay ku leeyihiin Soomaaliya idinka gowracay haddana birtii baad la kor taagantiin ka daaya birta aad u haysataan waxaa kaloo rabaa madaxda Puntland odayaasha dhaqanka culimadiinka ganacsatada aqoon-yahanada dhalinyarada dumarka war magacood jir waxa lagu ciyaarayo waa masiirkiini Soomaalida waxa dulinimo kaga dhacday qofka madaxda ah inayna la xisaabtamin inayna la hadlin war dadku ayagu idin ma leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlayay Fir'aun inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiy'an يستضعف ضائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إلهي مركو فرعون ساس كيري آيات دي كلمها سورة كلمها اللي ويري شعبكي فاستخف قومه فأضاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين والاستخفاف كيس كداية والرب لنا والله هذا الله صومالي واحد ودو انتين مجرتو صومالي باتهين قبل بلان ليرا باتهين قبل جبلان ليرا باتهين كرشبه لاتهين قل مدوق باتهين كونفور قلبيت باتهين واحد دير تهين وكلميش ميالان وحي سيادة إذينه إذين كبلان سيادة إذينهن مدني ماذا دلك يوذا جيرك دلك ومقدس وانا الله إلالينا يا قف أحسان لوغو سمعين يانا مجرتو قاتا تلادا وسيرك waxbarashada gooda xaqaata goodaxna waxaan leeyahay Allah ha ku karaameeyo halka taagno xaqiinay jirtaaye la hadla dani la hadla siyaasadda iyo waxbarashadu isma galaan laguma gorgortami karo ilmaha 12 sano wax soo dhiganaya siyaasadiisa la hadla madaxdiina ha istighfaafka iska daaya dulinimada iska daaya ilmihiinu inuu shahaado qaato dawli ah ilmahay dan u tahay Soomaaliya dan u tahay idinkii dhalay bay dan idin tahay inta wax soo barahay dawladda waxba idin kala soo jiraan warka wasiirka qaata la xisaabtama madaxdiina ilmihiina yaan loo qabsanin curaariyaan loo qabsanin dadka aan magac dhabay oo Puntland oo sharafta iyo magaca ku leh war magacood jir ilmihiina u hiiliya midnimada Soomaaliya u hiiliya nolosha Soomaaliya u hiiliya dadnimada Soomaaliya u hiiliya waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel aad joogtaanba waxaan idin kula dardaarmayaa midnimo wadajir horumar isku duubni iyo adawgiina inaad u midowdaan oo aad meel uga soo wada jeedsataan wixii idin dhaxmarayna horay idin dhaxmarayna iska cafiya ma soo laabanayaan wadajirka iyo midnimada iyo isla socoshada iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo horumarka macna leh sidaas aan ku dardaarmayaa wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh